yahay anoo da'dan jira oo hooya inaan waligay arkin madaxweyne Soomaaliya ee wadankayga sharafta leh Soomaaliyeed oo ah madaxweyne waxaan maanta aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan si live u arkay madaxweynahayga waxaan leeyahay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku soo dhawow Gaalkacyo Galmudug waa dhalinyarada ku soo dhaweynaysa shacab iyo dadweyne iyo dhammaan waa ku soo dhaweynaynaa ma garan karna dareenkeena qiiradana aad bay u kacsan tahay qorraxdan taaganahay ma dareemayno saaka salaadii waan soo istaagnay waxaan ku leenahay madaxweyne soo dhawow madaxweyne waa kugu haweynahay madaxweyne waa kugu haweynahay waxaan rabnaa inaad noo samaysid madaxweyne waxaan kaa rabnaa inaad nabadda ka shaqaysid Gaalkacyo waxaan jirnaa 30 sano waligeena nabad ma arkin waxaan maqlaynaa qaxbad waxaan maqlaynaa isbaaro la isku leeyahay dhalinyarada way dhamaatay balahay ku dhamaatay waxay ku dhamaadeen ma naqaan madaxweyne waxaan kaa rabnaa dhalinyarada Gaalkacyo baana inaad dibashisinta ka shaqaysiisid madaxweyne waa kugu haweynahay soo dhawow waxaan runtii aad iyo aad idinkaga mahadcelinayaa sida walaaltinimada leh ee qalbiga furan oo diiran oo sharafta weyn aad ku soo dhaweysay aniga iyo wafdigayga waxay ka turjumaysaa sidaad u jeceshiin martidiinna iyo madaxdiinna safarkan dheer aan soo galay oo aan maanta aan ku joogo magaalada Gaalkacyo magacan u bixiyay waa maqashay Soomaaliya waxa weeye waa safarkii dib u heshiisiinta Soomaaliyeed dib u heshiisiinta macnaheedu waxay tahay qof walba oo halkan jooga magaaladan Gaalkacyo iyo qof walba oo Soomaaliyeed dhageysanaya laga bilaabo maanta inay noqdaan nabadoono go'aanka dib u heshiisiinta idinkaas ka leh ee ogaada annaguna waa ballan waa idinkala shaqaynaynaa waxaa idinkaga maqan nabadaas waxaa idinkaga maqan horumar baa idinkaga maqan annaga dawlad ahaan waa idin keenaynaa wax alla wixii horumar u baahan tihiin waa idin keenaynaa laakiin sidaad aniga ii soo dhaweyseen maanta qof walba oo Soomaaliya waa in loo soo dhaweeyo walaalaati idin soo dhaweeya insha Allah waa ka war qaadanaynaa waxaan u nimid halkan dib u heshiisiin taasoo aan ballan qaaday gacan ma igu siinaysaan magaalada inay noqoto magaalo nabada oo horumar leh oo mustaqbal fiican leh wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh